ka waran daawade haddii aad maqli lahayd in mid ka mid ah salaadihii aad jameecada ku tukatay uu imaam ka ahaa robot maxaad samayn lahayd adigu waa sheeko xiiso badan oo aan maanta idin hayo intaan u gudagelin sheekadan xiisaha badan haddii ay tahay markii kugu horeyso aad nasoo booqato waxaan kaa codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasanid mid ka mid ah wadamada islaamka gaar ahaan kuwa carabta ayaa tijaabinaya in robot uu masaajidooda imaam ka noqdo sabab la xiriira in mushaaraad badan ay ka qaataan imaamyada tujiya masaajidaasi wadanka la yiraahdo isutaga imaaraadka carabta ayaa bilaabaya tijaabo la xiriirta in robot ay soo iibsadaan oo ay imaam uga dhigaan mid ka mid ah masaajida ku yaala magaalada Abu Dubai si ay u qiimeeyaan in dadka ay la qabsadaan iyo in kale iyo sida uu salaada u tujiyo arintan ayaa timid kadib markii dalka isutaga imaaraadka carabta uu qarashaad badan uu kaga bixi jiray in ay wadamada kale ka keensadaan qaariyaal u aqriya quraanka oo salaadana tujiya maalmaha fadliga badan ee lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ay aada dalka isutaga imaaraadka carabta waxa ay dalkooda u keeni jireen qaariyaal kale oo laga keenay wadamo kale kuwaasi oo aad u cod macaan dadkana ay la dhaceen sida ay u tujiyaan salaadaha iyo qiraa'adooda qurxoon magaalada Abu Dubai ee dalka isutaga imaaraadka ayaa noqonaysa magaaladii ugu horeysay oo masaajideeda ay imaamyo ka noqdaan robotyo mana la oga sida ay uga falcelin doonaan dadka imaaraatiga ah arintan ayaa imaanaysa kadib markii dadka u dhashay dalkaasi gaar ahaan dadka arrimaha diinta ku shaqada leh oo horey u keeni jiray dalkaasi qaariyaasha codka macaan oo mushaar badan markii hore uu kaga bixi jiray ayaa waxa ay sheegeen in salaadaha dhaadheer ee taraawiixda iyo tahajjudka hadda kadib la tijaabin doono in robotyo ay tujiyaan si sanadaha soo socda dalka imaaraadka carabta uu ugu maarmo in qaariyaal laga keeno dalka dibadiisa dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa mushaaraad badan waxa uu kaga bixi jiray qaariyaashaasi laga keeno dalka dibadiisa iyagoo safarkaasi ku qarash gareyn jiray malaayiin dollar oo la xiriirta caafimaadkooda safarkooda wixii ay cuni lahaayeen iyo meeshii ay u hoyan lahaayeen taasi oo ay sheegeen in ay dhibaato ku noqotay oo ay hadda ugu qarash yar tahay in ay robotyo tijaabiyaan si ay salaada u tujiyaan waa markii ugu horeysay oo dadka islaamka ah ay maqlaan in salaada uu tujinayo wax aadane uu gacantiisa ku sameeyay oo robot ah tanina lama oga sida ay uga falcelin doonaan culimada islaamka